Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta qiimaha iyo qaayaha loo ku soo dhawaada Higgs Technology. Anigana waxaan ahay Maxamed Xirsi Maxamed. Maanta hadduu alle idmo waxaan isticmaali doonaa Adobe Illustrator. Waxaana samayn doonaa waxa la dhaho poster amase mararka qaarkoodna aan dhihi karna flyer one page ah ama hal page. Kusoo dhawaada Higgs Technology mar kale iyo mar kale. Maanta sida idiin sheego horeba waxaa qaadan doonaa Adobe Illustrator. Waxaana ku samayn doonaa waxa la dhaho poster amase flyer one page ah. Marka Adobe Illustrator kayga soo kacsado waxaa tagayaa file kadibna waxaa tagayaa new. After that waxaa dooranayaa cabirka aan rabo posterkayga inuu noqdo. Halkan waa widthka ama balaca, intana waa highga amase jooga. Marka halkan ayaa tagayaa aniga ma rabo inaan cabiro kala doorto. A4 ayaa dooranayaa kadibna halkan ayaa imaanaya oo ka dooranayaa vertical amase taagni. Horizontal ayaa joogto oo jif in laga dhigo. So markaas waxaan leeyahay okay. Kadib markuu ii soo kacdo warqadeeda A4ta ha ka welwelin hana fiirinin wax halkan igu yaala ee sawirka u eg kalarada amase waxa inta igu yaala ee shape-ka ah. Because of haddaan kuu sheego kalaradan sidaan meesha ku keenay waxaan isticmaalay rectangle toolkayga ayaa kadibna inta ku keenay. Halkan kale waxaa igu sawiran telephone iconkiisa iyo wax lamid ah, taasna ma u baahnid inaad ka walwashid. Sidoo kale halkan waxaa ii yaalo wax la dhaho logo oo aan rabin inaan mar kale doono, sidaas darteed halkan ayaa isku keensaday. So aan designkayga bilaabo, marka koowaad waxaan soo gelinayaa sawirka aan rabo designkayga inaan ku sameeyo. Sawirkan waa wax lagu magacaabo kursi ama furniture qayb ka mid ah. Maanta waxaan sameynaynaa poster aan leenahay furniture-kan waa raqiis oo 50% waa la jabiyay amase discount ayaa la sameeyay. Halkan ayaa waxaa keenayaa projectiga ayaa dhex keenayaa. Markaas sidaan u dhex keeno waxaa kaloo ku dhex keeni kartaa inaad tagtid file kadibna aad dhahdid replace. Aniga hadda waxaan dhahay file open kadibna waa doorto meesha uu yaalo sida Photoshop-ka caadiga u isticmaali jirto kale. Marka sidaan keeno waxaa tagayaa halkan rectangle tool. Halkan ayaa ku sawirayaa calaamad noocaas ah. Sidaas markaa yeelo waxaan rabaa magaca shirkadda inaan ku sawiro. I drop ayaa tagayaa kadibna colorkan ayaa dooranayaa. Daddoon kan waa dooran karaa laakiin midkaas kore ayaa dooranayaa. Maybe kan inaad doorto. Okay. Sidaas markaa u doorto waxaan tagayaa halkan hoose waa aniga ii taal loogadeeda. Haddii adiga aysan kuu oolin loogadaada waa inaad soo gashataa oo aad file new kadibna aad soo gashataa. Halkan ayaa soo dhigayaa oo weynaynaya in yar Higgs Furniture. Okay. Kadib waxaa tagayaa halkan amase toolkan ayaa tagayaa oo lagu magacaabo Boloniga markaa keeno halkan ayaa soo dhigayaa saga u dhigayaa. Kadib waxaa leeyahay sidan ayaa u wareejinayaa. Kadib waa yareynayaa weli wax yar ku soo weynaynayaa. Kadib colorka ayaa ka bedelayaa. I drop ayaa taabanayaa. Colorkan ayaa dooranayaa. Halkan ayaa tagayaa stroke ayaa hal xabo ku darayaa. White na waa ka dhigayaa stroke. Maybe inaan laba ka dhiga xataa. Marka halkaas maraayo waxaa tagayaa text. Halkan ayaa imaanayaa waxaa ku qorayaa 50%. Kadib waa weynaynayaa 50%-ga. Halkan ayaa tagayaa regular meesha ku qoran tahay waxaa tagayaa bold ayaa ka dhigayaa 40. Kadib inta ayaa imaanayaa white ayaa ka dhigayaa. Hoos ayaa usoo dejinayaa. Waxaan leeyahay ku dhufanayaa waxaa ku qorayaa off. Offta waxaan rabaa inaan farta ka bedelo. Farta waa iska bedelayaa. Farta aad jeceshahay ayaa geysanaysaa. Okay. Sidaas markaa sameeyo waa soo gudbaya. Halkan ayaa imaanayaa waxaa tagayaa rectangle tool. Halkan ayaa geeskan ka bilaabaya gees kale ayaa ku geenayaa. Kadib fartan I drop ayaa taabanayaa. Kan ayaa dooranayaa kan. Kadib waxaa dooranayaa object kadibna waxaa leeyahay lock kadibna select.
intaas markaa sameysid si fiican ila soco. waxaad tagayaa halkan polygon tool soo qaadanayaa, halkan ayaa soo dhigayaa. intaas markaa la ekeysiisid wuu ku dhufanayaa, waa wareejinayaa, adoo shift haysid kadib waa ku dhufanaysaa, kalarkan ayaa dooranaysaa white, halkan ayaa kalar ku badanaysaa, waa bedelaysaa kalarkan, maybe inaad dhaho kan aan doorto, kadibna white inta ka dhaho, kadib inta ayaa imaanayaa, waa kala wareejinayaa, kan ayaa ku darayaa heer. sidaas markaa ugu dooro, sidaan u sameeyo, wax yar ayaa gees ku sikinayaa, aylta adoo haysid ayaa muuskaaga waxaa qabanaysaa qaybta midig, kadib sidaan ayaa u jiidaysaa, wax yar ayaa kala sikinaysaa, waa sii daynaysaa, kadib control D ayaa leedahay, saa isgeynaya mid kale. sidaas markaa sameeyo, waxaa sameynayaa qaybtan oo meeshan ii yaalo iconada mid kamid ah soo qaadanaya. kan koowaad waxaa waaye online delete, intaa soo dhigaya. sidaas markuu isoo dhigmo, waxaa sameynayaa kan delete application ayaan soo dhigaya. meesha waxaa ku qoran download app. marka wax hore u yaal meeshan aan inta soo dhigayo, mararka qaarkood dhib ku qabaa, sida kan ayaa soo dhigaya. hadda fiiri, markaas soo dhigo, haddaa ka noqdo ma soo muuqanayo. marka waxaa leeyahay control shift open and close bracket ayaa taabanaya. sidaas ayuu inta usoo qaadmayaa, wax yar ayaa weyneynayaa, kanna sidoo kale wax yar ayaa weyneynayaa. soo haddana waxaa soo qaadayaa kan hoostiis qoraalka igu qornaa mar walba iyo meel walba. kadib hadda uma jeedo qoraalka, control shift bracket case. sababtana maxay tahay, qoraalkan ayaa mar hore ku diyaariyay meesha, waxaa ka dambeeyey kalarkan ayaa ka dambeeyay, kadib meesha la soo saaray. soo marka sidaas sababta uu ku maqan yahay, hoos ku aadaya. marka control shift bracket open bracket close bracket ayaa leedahay mar walba. ama se waxaa dhihi kartaa, waxaa isticmaali kartaa right click range bring to the front. kuwan hadda inta soo dhigaa, right click bring to the front, hore soo mari waayo. marka sidaas markaa maraysid halkaas oo intaas aad maraysid, waxaa tagayaa right toolkan la yiraahdo paint tool, kadib halkaas ayaa ku dhufanayaa, kadib geeskaas ayaa tegaysaa, kadib halkan ayaa imaanayaa, hadana waa isku xirayaa. okay, saas markaa iskugu xiro, waxaa soo qaadayaa qaybta social media, inta ayaa soo dhigayaa right control shift close bracket, kadib wax yar ayaa yareynaya, kadib sidaas ayay noqonaysaa. look, marka si fiican u fiiri, waa poster dhammaystiran. halkan ayaa wax yar ku qorayaa, oo sida waxaa ku qorayaa ka faa'iidaysi wacan. kadib kalarka ayaa ka bedelayaa, farta aniga aan jeclahayn waa geysanayaa. sidaas markaa u geysatid, farta noocaas kuu noqoto is perfect. hal mar inta ayaa tegayaa, maybe tanaa soo qaatay, halkan ayaa dhigayaa like this, control center to the back aa leeyahay. qoraalka ayaa ku dhufanayaa, iTrove ayaa taabanaya, kalarka ka bedelaya qoraalka. so si fiican u fiir, hadda maxay kula tahay, miyaysa qurux badnayn? si fiican beeg. sidaas ayaa loo sameeyaa marka la sameynayo boosterada amase waxa la flyerada halka page. wayna fududahay, hadda furniture aan ku sameeyo, qudaar aan ku sameyn karaa, wax walba aan ku sameyn karaa. waana soo wada casharo kale oo sidaas u xiiso badan. asagoo laba page hore waa u sameeyay, hadda oo menu ah, haddana inaan sameeyo waa jeclahay. markii su'aal iga soo weydiisaan insha Allah hadduu aan leedmo, ka faa'iidaysi wacan, khayr badan ayaa idin rajeynaya.
adinkoo subscribe dhahdaan, like saartaan, commentigana wixii su-aal igu soo qortaan ayaan rajeynayaa. Hadduu Alle idmo. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.